BBC London. waxay 5 sano goortan bilaabay jaamacadda haddana waxaad moodaa 5 bilood taasoo ku tusinaysa sida uu carray waqtigu iyo sida wax kasta isku bedelayaan adiga oon dareensanayn ama inaga oon dareensanayn taasoo wadada isbedelka aynu kula kulmi karno dadiyo kala duwan oo isku jira asxaab walaal iyo cid kastoo nolosheena ku soo beeraysa assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed axmed cali waxa la yaqaan maxamed shaay waxa ka baxaya jaamacadda Hargeysa sanadka 2021 waxaan u aadanahay oo ku socda wadadii qalin jabinta waxaan noo dhiman waqti aad u kooban waxaan ka baxay kulliyadda engineering gaar ahaan departmentka architecture and urban planning taasoo 5 sano aan dhiganay jaamacaddu ay ahayd 5 sano oo aad iyo aad u qaaliya oo dad fara badan bartay experience yeeshay sidoo kale waxyaabo fara badan ay kala baxeen haddii la weydiiyo shucuurtaydu ay tahay amaan cabiraba aad iyo aad buu sareysa sidoo kale aad iyo aad u faraxsanay sababtoo ah hayaan dheer iyo wada dheer ayaan soo afjaray inkastoo aan ahayn halkii ugu dambeysay haddana qayb ka mid ah ayaan ku soo gudbay qaybii kale noloshuna way harsay intii aan ku soo jiray safarkan ama joonigan ama hayaankan waxbarasho ee 5 sano socday marka koowaad waxaan mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka labaadna waxaan mahadcelinayaa waalidiintay oo garabkayga taagnaa mar kasta oo ku soo jiray hayaanka waxbarasho ee 5 sano socday kaasoo ahaa wada dheer run ahaantii laakiin cidda ku garab istaagaysa ay tahay markasta ciddii ku dhow ee garab ku siinaysa ee wadada kula maraysa mar kasta aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhammaantiinba aad iyo aad noo idin jeclay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa macallimiintaydii asxaabtaydii walaalahay cid kasta oo ku dhex jirtay 5 sano fariimka 5 sano socday cid kasta oo ku dhex jirtay aan aad iyo aad u mahadnaqayaa macallimiintaydii aqoonta kala duwan baray waayo-aragnimada baray wax aan hore oo aqoon ugu soo kordhiyay dhammaantoodba macallin ballaaran ayaan xaggan u marinayaa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda samaysay fiidiyogan aad iyo aad ku quruxda badan ee muujinaya farxadda documentary ahaanka ah sidoo kalena soo gudbinaya habkaad ka dareemayso maalintaada sidoo kalena ku noqonaya xasuus aad weliga haysato cid kasta la wadaagi karto shirkadaas oo ah Best Pictures aad iyo aad u mahadsantiin halkan waxaan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ardayda walaalahaya ee ka baxaya jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadaha kale ee dalka iyo dibadiisa dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo waad samayseen finally you made it guys hore u socda